fadhigan oo ahaa qayb ka mid ah madasha nabad waarta ayaa misana wuxuu ahaa mid ay si gaar ah u maamuuseen una soo qaban qaabiyeen beesha maxamed xasan muumin oo ah beelaha madashani ay qusayso waxaana ay si gaar ah ugu casumeen beelaha walaalahooda oo shirka ka qayb galaya kuwaasi oo erga ahaan uga yimid qaybo ka mid ah gobolka Mudug gaar ahaan Bandiirale iyo Gaalkacyo ulajeedada madashan waxay ahayd martiqaad gaar ah oo loo sameynayo beelaha walaalaha ah ee erga ahaanta uga soo qayb galay madashan waxyaabaha sida gaarka ah la iskula lafaguray martiqaadka dabadi waxa ka mid ahayd in nabadda la qaato colaadana laga tago beesha kulanka soo qaban qaabisay ee maxamed xasan muumin ayaa si gaar ah qorigii dhulka u dhigay dabadeetana odayaasha dhaqanka iyo nabadoonnada ayaa qorigii 40 sano ay xabadu ka dhacaysay cag dusha ka saaray waxaana kor ay u qaadeen kitaab iyo qalin dadka deegaanka oo dhan baa nabadda soo dhaweeyay oo qaatay oo labada beelooda annaga waxaa gaar nagu ahaa haddaan nahay reer maxamed xasan dadku way isxantaa gobolka Mudug ama Soomaaliya ama kililka sharaad oo wax ka deganay deegaankaas oo dhan xanaan run ahayn baan rabnaa inaan reebno oo dadka lagu xanto xantaasaa waxay tahay dadku waxay dhahaan reer xasan waa dad shida badan oo colaaday waxay ka ahayeen labarwar maamulka hore run ma ahayn oo war xalay ahayn laakiin waxaan ku reebaynaa beelaha hadda soo fadhiyo leerkaasi iyo sacad dhammaan ummadda Soomaaliyeed intana fiirsanaysa intana maqlaysa waxaan maanta maajeesaan u gudbaynaa waa khabar ahaan inaan nabadda la warjibaar boqolkiiba boqol u nahay soo dhaweynteeda dhaqangelinteeda taageerideeda iyo waxaase si gaar ah madasha dareenkeeda u ruxay Cabdikariin Daynab Maalinguur oo ah wiil aad dhalinyaro ah kaas oo ka hadlay shakhsiga uu yahay iyo waliba in aabihii uu ku waayay colaadihii 30 sano beelahan ka dhaxeeyay Cabdikariin ayaa sheegay in sida odayaasha dhaqanku ay nabadda u qaateen isagu uu nabadda u qaatay horta ay la xasuusiye aniga aabaha iyo dhalay dagaaladan ku dhintay wax kasta oo aan ka qabay ama qof dilay aan uga qabayna kitaabkaas maanta la guddoonsiiyay baa raaliga mahadsantihiin dhammaantiin magac walba iyo mansab walba ku joogtaan farxad bay maanta ii tahay inaan ka soo qayb galo barnaamijkan ama kulankan beri baan waxaa ahayn col waxaa ahayn kuwa meelshii looga jeedaba haddii uu dhaawac yahay xitaa la dhiibi tiro beri baa waxaa ahayn kuwa la fiirsado oo meeshii taaka u dhiiba taaka laga daba dhigo ilaahaygi maxad waxaa iskale noogu bedelay barnaamijkaas inaan walaalo noqono xaggan wada joogno waxaa ku darsan lahaa waxaa la isku dagaali jiray geelka waxaa codsan lahaa in kunala dardaarmayaa ninka leelkasaa dhinacu hasha ka lisay maa ninka sacadka dhinaca kale ka lisay gobolka Mudug heshiiye waa Soomaaliya heshiisay annaga farxad noo tahay annaga wanaag noo tahay annaga quruxna waa inay heshiino Soomaalina way nagu dayanaysaa digay fantasiyo aan caadi ahayn inama aan caadi ahayn bay soo bandhigeen waxaan leenahay walaalayaal waa dhiirigeliseen nabadda waa dhiirigeliseen aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa jazaakumullahu khayr baan leenahay walaalayaal aad iyo aad baad mahadsantiin kelmadda aan rabo nabadoonkii iga horreeyay halkan uu soo istaagay wuxuuna ku istaagay qorigii aniguna waxaan rabaa inaan ku istaago maanta ushaas oo u taagan qabiilkii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meesha ka soo qayb gasho waa salaamaya magac kasta iyo maamuus kasta ay ku fadhido runtii xafladda wixii la oran lahaa waa la yiri aanu mahad celiyo walaalihii xafladda sameeyay iyo walaalihii soo ajiibay oo labadooda gacmooda inta haddaan ka gudbo runtii waxaan ka raali gelinaynaa walaalihii meesha lagu casumay xafladda wixii maanta ka khaldamay bilaadan baana ma dhamaystirin walaalayaal naga raali ahaada wixii maanta naga khaldamay casumaadda hoos baa la kafto waxa la xafladdu ma xafladii Sacad iyo Raamaha Xasan oo kaliya ma waxba ku hoos laaban ma musharaxnimada maanta sheeganaysaa maadaama waqti ka dhamaaday wali waqtiga ma dhamaan waqti kale musharaxnimada sheegan doona aad iyo aad ma mahadsantuun xafladuna waa noo xiran tahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala wa barakaatuh.
ugu dambeyn martiqaadka dabadi ayaa ergada la guddoonsiiyey hadiyado qaali ah iyadoo hablaha kulanka ka soo qayb galay ee erga ahaanta u yimi madashana la guddoonsiiyey hadiyado qaali ah oo xitaa dahab uu ka mid ahaa.